kusoo dhawaada qaybta koowaad ee qormooyin door oo aynu ugu magac darray looma ooyaan dhulka danta guud. Qormada maanta waxaynu ku soo qaadan doonaa dugsigii dhaqaalaha guriga ee Xaaji Haweeya, dadkuna u yaqaaneen Women's Club-ka. Kani waa gidaarka dugsigii hore ee dhaqaalaha guriga Xaaji Haweeya. dugsigani waxa uu ahaa mid lagu barto xirfadaha kala duwan. waxa uu ahaa dugsi ka mid ah dugsiyada ay maamusho wasaaradda waxbarashada, isla markaana macallimiin mushahari ay joogaan, sida uu sheegayo Maxamed Sheekh Cali. waxay ahayd iskuul dawladeed, macallimiintii maxaan ku dhahdaa dawladda u shaqeynayeen mushaharka qaadanayeen ay joogaan, arday badanna dhiganayeen. dhismo dawladeed baa maalin dugsigu lahaa xaflad kuna soo bandhigayay xirfadihii ardaydu barteen iyo wax soo saarkoodii ayaa waxaa kala soo qayb galay gudoomiye ku-xigeenkii waxbarashada gobolka Maroodijeex Galbeed, Maxamed Sheekh Cali Cismaan. Maxamed Sheekh Cali waxa uu ardaydii ku wargeliyay in dugsiga dayactir lagu sameynayo, sidaa daraaddeedna ay fasax ahaanayaan muddo kooban. nasiib darro ardaydii fasaxii kamay soo noqon. haddaba maxaa Maxamed ku kalifay arintaas? horta way jirtay inaan ahay ninkii ardayda fasaxay, laakiin fariin madaxdaydu isoo fartay oo la igu yidhi ardaydaasi xaflad bay leeyihiin, kala qayb gal xafladda, waxaanad u sheegtaa in la fasaxayo muddo yar oo 15 cisho ah, isla markaana iskuulka loo dayactirayo oo la gacan marinayo Istanbul iyo Rinji iyo meelaha jajaban waxa soo la hagaajiyo dayactir lagu sameynayo. anigu markaa waxaan isu haystay in bushaare sida xafladii markii aan ka qayb galay dad badan ay hadleen, markii anigu hadalkii soo gaaray arintii de bushaare sida ilaanu bushaare sida bushaaradii baan u sheegay in iskuulka loo dayactirayo oo loo hagaajinayo. dumarku halkaas sacab badan iyo mashxarad badan ay ka galaan, aad bay ugu farxeen runtii, laakiin fasaxii kama bay soo noqon dumarkii ilaa imika kama soo noqon. arintu sidaas ayay u dhacday. ardaydiina fasaxii bay galeen. runtii waxay soo bandhigayeen xafladooduna waxay ku saabsanayd wixii ay sanadkaa qabteen oo xirfada ahaa, oo dharkii ay toleen ahaa, oo funaanada ay toleen ahaa, oo alaabo kaloo guryaha lagu qorxeeyay toleen ay sameeyeen ahayd, oo cuntooyin ay kariyeen ahayd, oo dumar la baray sida looga shaqeeyo meelahan saaloonka ee dumarka magaranaysa qaar la baray ay ahayd, qaar la baray sida dharka loo midabeeyo, loo dhar la karinayo midaba loo samaynayo ahayd. waxyaabahaasi soo bandhigayeen oo shaqo fiican ahayd. kolka arintaasi sidaasay u dhacday. runtii arintaa waan ka xumahay. waxaan uga xumahay macallin baan ahay. cid kastoo iskuul wax u qabata waan ku farxaya, waanan hambalyeynaya. cid kasta oo iskuul wax kastoo waxyeello soo gaadhana waan ka naxaya, waanan ka xumaanaya. sidaa awgeed ayaan uga xumahay arintaa. inkasta oo dadka qaar ku doodeen in marwadu dugsigii qaadatay, haddana dowladdu way ka murantay in qoyska madaxtooyadu arrintaa ku lug leeyahay. mas-uuliyiin dowladda ah ayaa shaashadaha soo fadhiistay iyagoo ku doodaya in laga iibiyey ganacsade Maxamed oo Siciid Geedi. Women's Club-ku wuxuu ku jiraa dhulka hantida dowladda, waana la iibiyey. waxaana laga iibiyey annagu ma hayno, meel ka keenayna garan mayno, meel ay marwadu ku qaadatayna garan mayno. GR-ka aad halkaa ku aragtaan waxa ku qoran muwaadinkii laga iibiyey, lacagtii laga siiyey, oo aad arkasaan mulkiyadda cidda loo sameeyey ee loo qoray ee la yidhi markay lacagtii bixisay mulkiyad lahaanshaha loo sameeyo, waa cidda halkaa ku qoran. meel ay kaga jirta marwadu oo ay ku qaadatay dhulna ma hayno. waxaana iibisay guddiga iibka qaranka, hantida qaranka oo dokumentigoodii kaa yahay. dhulkaana waxaanu ka iibinay ganacsade Maxamed oo Siciid Geedi. in ma aha waxaana cadayntooda hayn in lagula kaco aflagaado oo marwada madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ayaynu arkaynaa in waxaanay meel aanay shaqo ku lahayn in lagu eedeynayo. tani waa kuwa guddiga iibiyey goobta waxbarasho ee ardaydu dhiganaysay, wadadayse u mareen. haba iibiyaane maxay wasaaradda waxbarashadu kaga maarantay ardaydii dhiganaysay iyo wixii ay baranayeenba.
wax yar kadib waxaa la dumiyey dugsigii waxaana lagu taagay boodhadh ay ku qoran yihiin so barkin oo ah shirkadda ganacsadaha la sheegay in laga iibiyey. sida documentka halkan yaala ku cad guriga waxa la iibiyey 2015 bishii 9aad meel ay ku caddahay ama ay ku jirto in xukuumaddu ka iibisay qoyska madaxweynaha guriga women's clubka ma jirto waxaan ummadda u sheegaynaa na daawanaysa aqliga wanaagsan inay tahay been cad oo runtii aan xishood lahayn oo loola bareeray qoyska madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland. inkasta oo markii hore iyo marar dambaba lagu dooday laguna qoray inay shirkadda soo leedahay haddana ugu dambeyntii xaruntii dugsiga ee Xaaji Haweeye waxa ay ka tirsan tahay deyrka hodheelka Cali Jirde ee magaalada Hargeysa. talow mas'uuliyiintii ku indhaadka arrintan maxaynu nidhaahnaa si ay u dhacday iyo aqli ku taliyeyba dugsigii ardaydu dhiganaysay ee qarankooda lahaa waxa uu maqaaxi laga cunteeyo u yahay meherad la sheegay in qoyska madaxtooyadu leeyahay. hadda isbarbar dhig maqaaxi cunto iyo madal waxbarasho. habeenada qaarna heesaa lagu tuntaa oo lagu caweeyaa. maynaan maqal dhulkii qaranku wada lahaa wax loogu bedelay. haddaba tani ma noqon kartaa xatooyo xoolo ummadeed? maxaynu ugu yeedhnaa mulkiilaha maqaaxida? maxaynu nidhaahnaa ganacsadaha magaciisa la isticmaalay? maxaynu ugu cudurdaarnaa mas-uuliyiintii difaaca la soo fadhiyey tiifiyada? midba meeluu ka soo galaba kama nadiif noqon karo godobta laga galay waxbarashada iyo ardayda bannaanka loo dirayba iyo weliba qaranka dhacan midna. alla xalaal miirasho waanaan lahayda. waa inoo mar kale iyo qormo kale oo ka tirsan barnaamijkan looma ooyaan dhulka danta guud. intaynu kaa isugu iman doono salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waxaan hambalyeynayaa bogaadinayaa bahda Cali Jirde. waxaynu isugu nimi munaasabadan inaynu ugu ducayno ilaahay uu barakeeyo. annaga farxad gaar ah uu noo yahay hodheelka Cali Jirde. waxaan leenahay waa loo baahnaa. waxaan ku hambalyeynayaa Aamin Weys. aniga farxad weyn bay ii tahay. aad iyo aad baan u faraxsanahay caawa. intanoo mas-uula meeshay isugu yimaadeen ka cashaynayaan loo hambalyeynayo loo ducaynayo lagu faraxsan yahay halka ay tahay miyaad garanaysaa? haddaad og tahay waad og tahay, haddaanad ogeynna aan kaaga warramo. waxay ahayd goob waxbarasho oo xukuumaddii Siiraanyo xilligeedii qoyska madaxtooyadu qaatay. haddaan ku celiyo waxay ahayd dugsi waxbarasho oo dowladdu leedahay xilligii Ingiriiska la dhisay wax lagu baran jiray macallimiin dowladda ka gunaysani ka shaqayn jireen oo inta waxbarashadii ka socotay la laabay ardaydii la dareeriyey laga dhigay meel laga cunteeyo laga heeso oo laga jaaso. iyada oo ay saa tahay ayaa intan oo mas-uulahay goobta isugu yimaadeen ka casheeyeen kuna faraxsan yihiin sida ay sheegeen. inta hadashay way hadashay, inta fadhidaana inay la qabto ayuunbay ka dhigan tahay. goobtan waxaa la odhan jiray dugsiga dhaqaalaha guriga ee Xaaji Haweeye. dumarka ayaa waxaa lagu bari jiray akhriska, qoraalka iyo xisaabta iyo weliba xirfado kala duwan oo noloshooda ay ku maareeyaan. ha yeeshee inta ardaydii lagu yidhi dib ayaa la idinku dhisayaaye inta la hagaajinaya fasaxahaada ayaa dugsigii la dumiyey waxaana lagu daray hodheelka Cali Jirde oo dugsiga jaar la ahaa. goobtii dumarku ku baran jireen xirfadaha ay noloshooda ku maareynayaan hadda dadka ladan ayaa cunto qaali ah lagaga iibiyaa waana laga jaasaa. waxay ahayd iskuul dowladeed macallimiintii maxaan ku dhahdaa dowladda u shaqaynayeen mushaarka qaadanayeen ay joogaan arday badanna dhiganayeen. horta way jirtay inaan ahay ninkii ardayda fasaxay laakiin fariin madaxdaydu isoo fartay oo laygu yidhi ardaydaasi xaflad bay leeyihiin kala qaybgal xafladda waxaanad u sheegtaa in la fasaxayo muddo yar oo 15 cisho ah isla markaana iskuulka loo dayactirayo oo la gacan marinayo Istanbul iyo Rinji iyo meelaha jajaban waxa soo la hagaajiyo dayactir lagu sameeyo. anigu markaa waxaan isu haystay in bushaare sida xafladii markii aan ka qayb galay dad badan ay hadleen markii anigu hadalkii soo gaaray arrintii de bushaare sida ilaa anigu bushaare sida bushaaradii baan u sheegay in iskuulka loo dayactirayo oo loo hagaajinayo
dumarku halkaa sacab badan iyo mashxarad fara badan ayay ka galeen aad bay ugu farxeen runtii laakiin fasaxii kama bay soo noqon dumarkii ilaa imika kama soo noqon arrintu sidaas ayay u dhacday ardaydiina fasaxii bay galeen runtii waxay soo bandhigayeen xafladooduna waxay ku saabsanayd wixii ay sanadkaa qabteen oo xirfada ahaa oo dharkii ay toleen ahaa oo funaanada ay toleen ahaa oo alaabo kale oo guryaha lagu qorxeeyay toleen ay sameeyeen ahayd oo cuntooyin ay kariyeen ahayd oo dumar la baray sida looga shaqeeyo meelahan saaloonka ee dumarka magaranaysa qaar la baray ay ahayd qaar la baray sida dharka loo midabeeyo loo dhar la karinayo midaba loo samaynayo ahayd waxyaabahaasi soo bandhigayeen oo shaqo fiican ahayd kolka arrintaasi sidaasay u dhacday runtii arrintaa waan ka xumaa waa taas meesha intan oo mas-uul ahi farxadda ducada iyo hambalyadaba u hibeynayaan waxaan si gaara uga sii xumahay saddexdan mas-uul oo agteeda qadarin dheeraada ku lahaa iyaga waxaan gaar ugu soocay markii hore ayay tixgelin inta kale ka badan agteeda ku lahaayeen waxaan isleeyahay kama xog la'a xaaladda meeshan waan se macnayn kari lahay sababta farxadda intan oo mas-uuliyiin u badan oo meeshan ka damaashaadaya waxaan isweydiinayaa ma waxaa loo sacabtumayaa in laga heeso ayaa ka wacnaatay in dad wax ku bartaan ma waxaa la bogaadinayaa dumarka aan asturnayn ee meesha ka heesa mise waxaan laga warqabin dadka la jaarka ah goobtan ee ka seexan waaya heesaha la iskaga dejinayo cashooyinka qaaliga ah ee meeshan laga iibiyo mise aan idhaahdee wixii hore iyo waxay ahaan jirtay ayaa la iloobay kolay aniga way igu adkaatay inaan hambalyadaa sababeeyo adigase mooyaan aan idiin raaciyo taariikhda dhismaha meeshan oo iyada lafteeda macno weyn u samaynaysa sheekada sida aan sheeko ku maqlay mid ka mid ah askartii ingiriiska ee ku dhintay dagaalkii labaad ee adduunka ayaa xaaskiisii xusuus ahaan dowladda ingiriisku ugu qaaday dalal kala duwan oo ingiriisku haystay oo ninkeedu ka soo shaqeeyey meelaha la soo tusay ee ninkeedu ka soo shaqeeyey waxaa ka mid ahayd Somaliland gabadhaas ayaa lahayd fikirka ah in halkaa dugsiga dumarku wax ku baranayaan laga dhiso hilaadii 70 sano kadib meeshii dareenka gabadha ajaanibka ah lagu dhisay mid dareenka ka soo horjeeda ayaa lagu burburiyay oo intan oo madaxahi u sacabtumaya wax kasta oo ay tahayba waxaan rajaynayaa in maalin maalmaha kamida meeshan ku soo noqon doonto gacantii dawladda laguna qaban doono adeeg bulshada dan ah ugu dambeyn waxa aan leeyahay xisaabtu xilligay doonto ha noqotee xogtan aynu wada hayno